Assalaamu calaykum asxaabta channelkay kusoo dhawaada. Maanta waxaan rabaa inaan ila qaybsado insha Allah sida aan ugu subiyo ilmaha Raising Cane Chicken. Waa fast food restaurant waaye oo aad famous u ah maasha Allah chickenkooda iyo especially the sauce. Marka sometimes waxaa jeclahay inaan guriga ugu subiyo. Maanta oo kale aan u subinayo insha Allah. Idinkana waan ila qaybsanaa sida aan u subiyo Raising Cane Chicken style. waa wax ilmaha jecel insha Allah. idinkana ka faa'iideysta. waxaa laga yaabaa ilmihiina inay ka helaan insha Allah. hadda waxaa ku daroyaa 2 cup oo caano garoor ah buttermilk. Agaas kan ku daro hadda caano garoorkii waaye 2 cups of buttermilk. Aku daraa first. buttermilk wuxuu siinaa dhanaan oo leeyahay soo maasha Allah macaan oo ka dhigaa chickenka markii lagu qaso. ka bacdi 2 xabo oo kun ah garlic toon oo shiidan waaye actually cusbo intaas isku qasoyaa si fiican isku qasaa kan kabacdi chickenka ku daraa wax yar waa iska gaarsiinaa insha Allah waa qasaa and then 2 saac la rabaa inaa frijeerka isku jirnaado so insha Allah bacdaana aan ku duubaa dabool camal ugu dhigaa sidoo air u galin insha Allah kabacdi frijeerka gelinaa 2 saac sugaa. hadda 2 saac kabacdi haddana insha Allah waxaa diyaarinoyaa burkii oo chickenka kor laga mari lahaa insha Allah. 2 qaado baking powder waaye kan garlic toon oo shiidan kana waxa waa bread crumbs. waa kan sidaan oo eg tahay nooc isticmaalayo bread crumb qoran akaas burka kordara 2 cup bur waaye kan garlic iyo ku daroyaa bread crumb already garlic leeyahay but ma u baahan wax badan. waa kaas kan cadkana waxa waaye midka hadda arkayseen baking powder. kaas waa soo diyaarsaday marka hadda insha Allah frieska duwa bacdan kan ready-ga duwaya kanay market pantry target ka soo gaday. hadda frieska si duwaya intii chicken gelin ka hor insha Allah. marka maasha Allah frieskan waa nooca ilmaha jecel fresh camal leh waaye yani freezerkay geliyaan way soo diyaariyeen wala soo gooyay marka dubmo macaan same freshkii aad u cunaysta camal oo noqonaa noocan. marka laakiin saliidiya kamira insha Allah. kabacdi ready way frieska and then markaas insha Allah chickenka duwaa. hadda caano garoorkii iyo wixii hadda arkaysay dhan oo ku dhex qasnaay oo 2 saac la sugaayay waaye dhadhanka u jeedin dhan kabacdi burkii oo diyaarinay hadda ay dhex gelinoyaa korka mari akaas hal u marinaa insha Allah sidoo si fiican u wada qabsado double breadina subinaa 2 mar ku celcelinaa sidoo oo si beel ku soo noqdo maasha Allah chickenka. waakaas markii koo mariyo haddana mar labaad aan subinoyaa sidii hadda camal ku soo celinaa. saasay u subiyaan Raising Cane so maasha Allah markii la dubo qurux ku soo baxaa korkiisa dhan macaan oo noqonaysa markii la dubo burkii wixii dhan iyo dhadhankii iyo chickenkii maanta dhan qasnaay macaan oo ku soo baxaa markii dubo. kan tartiib u dhex gelinayaa saliidii karkarooso maasha Allah at least 3 to 4 minutes al rabaa labada dhinac loo dubo insha Allah. hadda sauce-kiya suubina oo chickenka lagu cuno
basbaaska shiidan gaduudka, liimo iyo pepper le ku daraa, ketchup iyo manazi le waaye secret sauce-kooda oo macaan ka dhigo chickenka oo xagga la tago ama maqaayadaas. Kan waaye secret sauce-kooda, manazi iyo ketchup le isku lawaan. Markay isku dhex qasaan waxaanay ku dardarayin waakaas ketchup-ka aan ku daroya hadda. Markaas filfil aan ku daroya oo shiidan, basbaaska hadaa rabtid waa ku badsan kartaa oo kuleel zaaid rabtid but wax yar lee lagu daraa. Liin dhanaanka half ku daroya. Hadda waa kan si fiican aan isku qasaa, wixii dhan waa isku dardaray, macaan uu kusoo baxa maasha Allah. Intaa markaa isku dartid inaa maqaayadii kasoo gadatay oo maleynayo Raising Cane kalarkiisa wixiis dhan waa soo yeeshtay waa ujeediin. Haddaba basbaaska oo moor rabtiin basbaas extra ku darsan kartiin, haddii moor dhanaan rabtiin extra liimo. Marka maasha Allah intaan waaye. I hope inaa ka faa'iidaysateen. Haddaa channelkan ku cusub tahay please subscribe ka ha dhaafin insha Allah, like and share. aad waa mahadsantihiin.